asxaabta soo dhawaada janaalka Fatax Abuukar ee barashada sharciga soo jiidashada soo noqod wanaagsan. Waa ku faraxsanahay mar kale inaan idin hor imaado runtii anigoo idin sharaxayo waxa sharciga soo jiidashada uu yahay iyo muhiimadda uu leeyahay nafteena. Horta sharciga soo jiidashada waa sharci aad muhiim u ah kaasoo noo sahlayo inaan ma aragtay fahanno muhiimadda ay leedahay muxuu ahay fikirkeena oo leeyahay. Marka waxyaabaha marka aan anaga ku fikirno tusaale wixii aad adiga ku fikirto oo maskaxdaada ay ku fikirto haddii yihiin wax wanaagsan, haddii yihiin riyooyin wanaagsan, haddii yihiin aragtiyo wax dhisaayo, waxaa ku imaanaya wax wanaagsan, noloshaadana wax badan ayaa iska bedelaya. laakiin haddii aad tahay mar kasta qof walwal oo ku jiro iyo walbahaar, niyad jabsan, ka fikiraya waxyaabo xunxun, maskaxdiisu ay u sheegayso runtii waxyaabo dareen leh oo cabsi leh, ogaaw waxaa ku imaanaya waxyaabo dareen leh oo cabsi leh oo runtii kaa maaragtay muxuu ahay dhigaayo qof mar kasta fashilmo, guul dareysto. marka waa muhiim, aaday muhiim u tahay inaad arrintaas fahantid, aaday muhiim u tahay. waxaan rajeynayaa marka inaad intiina badan aad fahanteen arrintaas oo hadda kadib aad runtii malo wanaagsan iyo rajo wanaagsan iyo fikir wanaagsan aad maskaxdiina ku dhistaan. sababtoo ah waxaas ayaa ah waxa kuu suura gelinayo inaad guul gaarto. dadka qaar waxay u fasirteen law of attraction ama sharciga soo jiidashada siyaabo qaldan. waxay aamineen in haddii fikir kaliya wanaagsan aad la timaado wax walba ay ku hagaagayaan. sax ma ahan. fikirka waa waxa kaliya horta in waxa loo baahan yahay waa inaad si fiican u fikirtaa si maskaxdaadu ay u noqoto maskax toosan, fikir iyo dareen wanaagsanna xambaarsan. laakiin waxaa laga maarmaan ah inaad qaado tallaabo oo aad ficil la timaado, markaas ayay wax ku hirgalayaan. ficilka waxaa ka horeeyo maskaxdaadu. marka hore waa inaad ku qabataa fikir waxa aad rabto inaad samaynaysid, inaad ku guuleysatay oo mar hore aad natiijo ka gaartay. markaad taas aaminto oo si dhaba u aaminto oo yaqiinsato, ficilkana aad la timaado, wax walba way hagaagayaan, wayna guuleysanayaan. weligaana ka fogaa inaad isweydiiso laba su'aal oo ah goormay dhacayaan, goormaanse helaa, ama sidaan u helaa. micnaha waxaan goormaan helaa aniga iyo sidaan u helaa. labadaas su'aalood waa inaad ka fogaato waaye. marka intaas ka fogaato waxaad ogaan doontaa marka, ama aad arki doontaa wixii aad rabtay inay si degdeg ah kugu imaadeen, oo adig weliba adoon muxuu ahay dadaal dheer aanan gelin, oo maaragtay muxuu ahay culays badan aad is saarin, oo aadan u rafaadin wixii aad rabtay inaad si dhow ku hesho oo ay weliba si dhow kugu imaadaan. taasaan kuu sheegaa. okay, intaas markaan ugu soo tago si guud sharciga soo jiidashada, waxaan rabaa qof hadda kahor isoo weydiiyey taleefon iga soo wacay oo weydiiyey micnaha sharciga soo jiidashada iyo waxyaabaha ka dhexeeya ururada qarsoon ee dunida ka jiro. sharciga soo jiidashada haddii aan su-aashaas horta kaaga jawaabo, waxaa waaye sharciga soo jiidashada wuxuu dhisaa fikirka qofka, waana falsafad aragtideed oo ku saleysan qofka inuu u fakero si togan ama si wanaagsan, naftiisana oo ku kalsoonaado, aaminana inuu wax uu rabo heli karo, oona yahay qof himilooyinkiisa iyo riyooyinkiisa gaari karo, qof abuuro kara rajo iyo riyo wanaagsan, kana dhabay kara haddii uu ku dadaalo, kuna guuleysan karo inuu yahay. sharciga soo jiidashada asalkiisa waa saas. tijaabooyin badan la sameeyey, dad badan oo waxay sameeyeen magac leh way soo xaqiijiyeen runtii. waxaa kamid muxuu ahay haweeneydan buugga qortay oo la yidhaahdo Rand Bine. waxaa kamid Napoleon Hill oo qoray buugga muxuu ahay Think and Grow. waxaa kaloo kamid muxuu ahay Neville Goddard oo asna law of attraction guru ahay, qabiir dhanka sharciga soo jiidashada. waxaa kaloo kamid runtii muxuu ahay Greg David oo asna ku takhasusay sharciga danabeysan law of frequency. marka haddii aan su-aashaan aan si fiican uga jawaabo, runtii sharciga soo jiidashada waa saan kuu sheego, waa falsafad wax dhisaysa, aragti wax dhisaysa leh, qofkana dhiirigelinaysa inuu is aamino naftiisa, inuu wax qaban karo, inuu isku arko qof guuleysan karo, inuu wax qaban karo, iyo inuu yahay qof horumar gaari kara shakhsiyan.
laakiin su-aashii ahayd saaxiibkay isoo weydiiyey maalin hore taleefanka iga soo wacay oo aan ahayn aan maaragta isku galaas ahayn oo isla bari jirnay luqadda ingiliishka Malaysia aan isla joogi jirnay su-aasha uu soo weydiiyey waxay ahayd ma jiraan xiriir ka dhexeeyo ma jiro xiriir ka dhexeeyo laakiin dunida waxaa ka jiro ururo qarsoon oo la yiraahdo maaragtay maxaa dadka qaar u yaqaanaan waxa la yiraahdaa secret society ururo qarsoon jiro oo muxuu ahay aaminsan in dunidan lagu muxuu ahay maamulo fikir in lagu maamulo teknolojiyad in lagu maamulo maaragtay aqoon oo koox yar ay maamulaan in muxuu ahay dadka cidii ka hor timaado loo isticmaalo waxaa la yiraahdo eye ama isha calaamadda isha oo aad aragtaan taasoo ka dhigan qofka ilaalo oo inaad ilaaliso qofkan oo la socoto dhaqdhaqaaqiisa iyo in diishash la dhigo dalalka si loola socdo warbaahintooda iyo dhaqaalahooda waxaa kaloo intaas dheer siyaasiyiinta ka aragtida duwan nidaamyadaas caalamka ka jiro in loo isticmaalo waxaa la yiraahdo muxuu ahaa chips iyo vaccines ama talaalo la duro talaal ama chip la gelsho jirkiisa si loo ogaado waxa uu ku sugan yahay iyo waxa uu ka hadlayo iyo xaaladaha iyo marxaladihiisa oo dhan marka hadda ma rabo inaan gudaha u galo laakiin siyaasiyiinta Soomaalida waa jiraan kuwa saas kuwa badan oo caalamka ka jirna waa jiraan oo saas dabcan siyaasiyiinta Soomaaliga hadda aniga qof inaan shakhsi aan sheego ma rabo laakiin waxaa laga yaabaa haddii aad baarto siyaasiyiin Soomaaliyeed oo waxaa jira iska hadlo oo runtii markay hadlayaan loo maleeyo dad waalan waxa ay ka hadlayaan iyo ujeedooyinkooda aan la fahmi karin qaarkood ay dhahaan dadka waa isku dardareen qofkan hal xiro ama meel hal geeyo waana badan yihiin runtii ilaa waxaan u maleynayaa 10 inay gaarayaan marka kuwaas waxaa ku jiro qaarkood chip ayaa la gashay qaarkoodna waa duran yihiin sababtoo waxay ka hor imaadeen nidaamka new world order ka la yiraahdo haddii aan si sharaxaad leh aan kugu faahfaahiyo wax yar nidaamkan horta waxaa jiro sida wuxuu hoos tagaa markasto waa nidaam la yiraahdo dunida in lagu maamulo hal dawlad ay maamusho dunida taasoo maaragtay muxuu ahay dhaqaalaha iyo awoodda iyo wax walba laga dhigayo dawlad dhexe oo adduunka oo dhan ay maamulayso waa qole aaminsan ururaha jiro ayana kasii farcamay aragti hore ahayd laakiin hadda la soo cusboonaysiiyay qarnigii maaragtay 21aad laakiin aragtiyo hore jiray oo tusaale hadda qolooyinkan la yiraahdo Freemasons waxay ahaayeen dad ka shaqeeya dhismayaasha laakiin waxaa loo arkay hadda inay yihiin sida saxdana way yihiin dad maamulo dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka waxaa jiro qolooyin ayaan saas oo kale maaliyadda caalamka runtii inteeda badan maamulo qaababka loo bixiyo iyo sida loo qorsheeyo iyo meelaha la gelinayo hadday noqon lahayd dagaalo iyo hadday noqon lahayd muxuu ahay nabad in looga shaqeeyana qolooyin qaabilsanaa jiro oo la yiraahdo Illuminati marka waxaa jiro qolooyin la yiraahdo Bohoma oo ayagana runtii isticmaalaan waxyaabahan la yiraahdo muxuu ahay ritualiska oath iyo rituals waxa la isticmaalaan spiritual waa kuwaas dhaqan waaye inta badan siyaasiyiinta loo isticmaalaa caalamka ka jiro marka ay xilalka qabtaan madaxweynayaasha ay noqdaan ayaa loo isticmaalaa wadan aysan ka dhicin ma jirto muslim ama muslim ahaan waa ka jirtaa adduunka dhan waa laga isticmaalaa Soomaaliya ma ka jirtaa waa ka jirtaa yes madaxweyne kastoo Soomaaliya yimaado marka uu dhaarto kitaabka ayuu gacanta saaraa wuxuuna ku dhaartaa dalka dadka iyo diinta inuu u shaqeynayo laakiin xafiiska marka uu la wareego oo tago waxaa jira oath ama dhaar kale oo maro oo waxaa jiro rituals ceremony la yiraahdo ee isku imaada madaxda caalamka koox la isku xiriiriyaa jirto wadan ayay ka dhacdaa arintaas marka wadanka magaciisa halkan ka sheego marka way isku tagaan dhaartaasna way maraan maxaa yeelay markay dhaartaas maraan shaqooyinkiisa iyo mandatekiisa ayaa waxaa kamid inuu policy-geeda iyo siyaasadaha ku dhex shaqeeyo ururadaas oosan ka bixin haddii u arkaan ama ay rabaan in dalkaas oo hogaamiye la dhiso dhaqaale ahaan iyo amni ahaan waa ay dhisaan haddii u arkaan inaysan dhisin meeshiisa lagu hayo ama lasii dumayna waa lasii dumiyaa runtii sababta maxaa loo yeelaa faahfaahinta dheeraad hadda ma bixi karo mana idin sii karo laakiin mar kale waan kasoo diyaarin karaa mawduuc laakiin waa arrimo qarsoon oo dadka intooda badan aysan ogeyn xataa aan dhihi karo maanta siyaasiyiinta Soomaaliya ee isku haysto ama fadhiya maanta xilalka isku haysto inaysan fahansaneyn laakiin ay fahansiiyeen madaxweynaha dalka soo maray laakiin inta kale siyaasiyiinta
aanan fahamsanayn runtii arrintan ma isticmaalaan ra'iisul wasaarayaal iyo wasiirro iyo xildhibaan looma isticmaalo kaliya waxaa loo isticmaalaa head of states madaxda dowladaha bis ayaa loo isticmaalaa oo hogaamiyaasha haddii dalkaas ra'iisul wasaare leeyahay ayaa ka qayb gala dhaartaas haddii madaxweyne uu leeyahayna madaxweynaha ayaa ka qayb gala cid kale kama qayb gasho waana dhaar qarsoon oo runtii si gooni u qarsoon waaye weliba xataa madaxweynaha ama madaxweynaha caalamka ay ka qayb galayaan dadka la socdo ama fuudda wafdigiisa la socdo ma ogaa karaan hoteelka uu degan yahay iyo meelaha ay degan yihiin ayay ka dhacaan si shakhsi ah ayaana loogu sameeyaa dhaartaas laakiin hataa xaasaska haddii la socdaan ama bartakoolka qofka la socda madaxdaas madaxweynahaas oo kale ma ogaa karo oona mamnuuc in la ogaado waxaa jiro skull and bound waxay dhahaan oo ayagana isticmaalaan ritualis laakiin kuwan waxaa isticmaala jaamacadaha dalka Mareykanka iyo jaamacado badan oo Yurub ka jiro ayaa isticmaalo waa nidaam ay aaminsan yihiin oo ay runtii ku dhisaan waxbarashada caalamka shuruucdeeda iyo nidaamyadeedana ay u maraan oo lagu jaangooyo caalamka ku dhex jirto falsafadooyin arrimo iyo dadka in maaragtay muxuu ahayn qaab manhaj ayaga ay rabaan wax loo baro si dadku ay u noqdaan dad maaragtay muxuu ahayn theory ay maaragtiyo kale ku hubeysan meel mari aragtidaas kana soo dhex baxaan dowlado badan oo caalamka runtii iyo dalal kala duwanba marka waa nidaam waxbarasho oo ku dhisan oo runtii adduunka laga isticmaalo dalalka islaamka iyo kuwa aan islaamka ahaynba dhammaantoodna way isticmaalaan meel ay ka maqantahay ma jirto waxaa kaloo jiro waxa la yidhaahdo racing chromis qolooyin lahaa jiro qolooyinkaas waxa waaye qolooyinka aaminsan mugdiga dharka madow ama maaragtay muxuu ahay jinka iyo sixirka iyo muxuu ahay cayayaanka marka qoladan waxay runtii la shaqeeyaan waxaa jira wax la yiraahdo xilliga madow ama xilliga dhexe ay dadka geliyaan qolooyinka marka waxay aad u isticmaalaan ayaga dhaqaale iyo muxuu ahay shaqadooda ma aha laakiin waa siyaasadda in la bedelo ayay ku mashquulsan yihiin qolooyinkan waana midda keentay in caalamka inta badan marka dagaalo ay dhacayaan ama colaad ay socoto waa qolooyinka aad u shaqeeya waayo oo isticmaalo oo caalamka ay isticmaalaan haddadan aan la hadlayo oo fiidiyowga aan duwayo waxaa socda dagaalkii u dhexeeyey dowladdan Iiraan iyo muxuu ahay dowladdan Yuhuudda marka ama Israa'iil iyo Iiraan dagaalkoodii socdo cidda hadda shaqeynayso ama shaqada qabanayso oo isku dirka iyo abaabulka wado waa qoladan kooxdan waayo dagaalkii Ruushka iyo Ukraine cidda abaabulka kuwan waayo dagaalo badan oo dunida ka dhacay cidda wada ayaga waayo Soomaaliya iyo dalal badan oo Afrikaan wali saameyn ku leeyihiin xoog ku leeyihiin waa ka dhex shaqeeyaan qoladan markasta waxay isticmaalaan hawada dowladaha si xor ay ku maraan cid la hadasho ma lahan cid ka hortimaada ma lahan nidaamkan muxuu ahay qaramada midoobay ee UN system-kan waa nidaam ay runtii aad u dhacsan yihiin UN-kana kama hor imaan karaan oo waxay siiyeen muxuu ahay waxaa jiro artikalo iyo muxuu ahay resolutions qaraar ayaa United Nations-ka ama qaramada midoobay ka yaalo ay ku dhaqmaan oo qaas u ayaga waana arrin u qarsoon oo runtii ay og yihiin golaha ammaanka marka uu fadhiistay waa la og yahay xubnahaas xubnay ku leeyihiin dowladaha xubnay ku leeyihiin safiirada dalalka la geenayo ayay ku jiraan waxay ku jiraan ergeyada dalalka la geeyo ayay ku jiraan muxuu ahay marka dowladda Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay maqasho aday shakhsiyan ergey Soomaaliya loo soo magacaabay oo qaramada soo magacaabay ama midowga Afrika uu soo magacaabay inaa maqasho arrimihii siyaasadda Soomaaliya oo faraha la galay xasilooni daro ka shaqeynaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ka shaqeynaa qolooyin kale oo hub u geynaa howlgallo wadaa ha la yaabin marka ururkan aan kuu sheegayo ayaa shaqadiisa wato inaa la yaabto maahan waxaa u baahan tahay inaad fahanto si qoto dheerna u fahantaa u baahan tahay muxuu ahay waa muhiim waa inaad fahanto marka qolooyinkan oo muxuu ahay qaramada midoobay marka ama Security Council-ka golaha ammaanka markay shirayaan waxaa jira dalal hadda nabdoon oo la rabo in lagu duulo marka lagu duulayo marka qolooyinkana keena ajendayaasha iyo qaabka loogu duuli lahaa sida isku dir lahaa ama isku labadaas dowladood isku dhici lahaa in qorshooda diyaariyaan wayna galaan hawsha waxaa jirta qolooyin kale inta la yiraahdo VX scenario oo la soo oo muxuu ahay waqti hadda aan dhihi karno muxuu ahay ilaa iyo 200 sano qarni ay jiraan ayaa la yiri marka kuwaas waxay qaabilsan yihiin nabadda iyo wada xaajoodka caalamiga
iyagaa markasta qorshaha keeno dhexdhexaadinta iyo in nabadda lagu baaqo caalamka oo dhanne muxuu ahay warkooda ma diidi karaan hogaamiye kastoo caalamka midane waa uu adeecsan yahay waa ayna ka shaqeeyaan dal kastayna joogaan xarumayna ku leeyihiin waxayna ka mid yihiin safaaradaha dalalkaas ayay ka mid yihiin marka runtii waxyaabo badanaa jira oo qarsoon dunida qarsoon marka lagu leeyahay liskama dhihin wax badanaa jira oo qarsoon oo u baahan inaad fahantid u baahan ma fahmi kartid marka haddii aad muxuu ahay google ku qorto ama aad si shakhsi u baarto ma fahmi kartid laakiin waxaa u baahan tahay cilmi baaris dheer inaad samayso oo qoto dheer waxaa u baahan tahay casharo gooni ah oo fahamkooda inaad fahamto u baahan muxuu ahay haddii marka meel yar aad idinka tuso waxyaabo yar aad idinka tuso ama sharaxaadkooda idinka siiyo Soomaaliya tusaale kale hadda Soomaaliya dhibaatadeeda dadka qaar waxay moodaan muxuu ahay inay ka jirto arrimaha gudaha dadka qaar waxay moodaan qolooyinka nabadiidka oo dawladda ku kacsan inay ka jirto dadka qaar waxay moodaan shakhsiyaad iyo qabaa'ilo inay ka jirto may waxay ka jirtaa arrimaha dibadda Soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda qolooyinkan marka waxay ka shaqeeyaan arrimaha dibadda ee Soomaaliya inay xasilin in markasta faragelin gudaha ay jirto marka dad fahamkeedii leh ayaa loo baahan yahay dawladaha caalamka ay ka gaashaanteen runtii oo maaragtay ama ha ahaadaan muslimiin ama ahaan way ka gaashaanteen oo waxay samaysteen dad arrimahan fahamsan ku xeel dheer la shaqeeyo muxuu ahay markastaana dawladahaas danahooda muxuu ahay hormariyo ururadaana markasta fahansiiyo inay muhiim tahay in la qadariyo madax banaanida dalkaas lana qiimeeyo runtii amnigiisana isaga loo daayo oo runtii mas'uuliyaadkiisa iyo horumarkiisa laga shaqeeyo marka inta badan dadkaas waxay ka dhigtaan safiiray u yihiin dawladahaas caalamka aan kuu sheegayo danahooda ilaaliyaan laakiin Soomaaliya safiiradeena caalamka ee noo jooga dibadda hal safiir oo maanta yaqaano barnaamijyadan ama fahamsan ama sida ururadan ay u shaqeynayaan ma jiro xaqiiqatan waa soo baaray safiir maanta fahamsan kuma jiro ama wasiir arrimadeed marka that's why Soomaaliya wali ma taqaanaa victim u tahay dhibana u tahay oo ayada dhexdeeda isdilaysa maanta oo dhibaato xoog leh ka socoto dal iyo dibadna aan la qaylinayo la cawaadayo oo ma aragtay marna leeyahay ajnabiga faragelin lagu hayo marna gudaha ay dhibaato ka taagan tahay marka Soomaaliya dhibaatada ma ku jira yes way ku jira haddaysan helin dad u istaago oo diblomaasiyiin oo arrintan fahamsan sidee lagu heli karaa waa dhooban yihiin dad badan oo arrimahan fahamsan aa jiro oo diblomaasiyiin oo bartay arrimahan qaas u bartay runtii qarankan meel dheer gaarsiin karo wax badan uu qaban karo guulo waaweyn geey karo runtii marka I don't know ma fahamsantahay dawladdu nidaamyadan inay jiraan iyo dadkaas in loo baahan yahay yes of course madaxweynayaasha dawladaha waa fahamsan yihiin madaxweyne kasta Soomaaliya soo maran waa fahamsan yahay laakiin sababta loo sameeyay la yahay ama runtii dadkaas muxuu ahay u hogaamin la yihiin siyaasadda arrimaha dibadda ama safiiro u noqon la yihiin ma ahan cilad ka timid dawladaha shisheeye waa cilad ka timid hogaamiyaasha Soomaalida muxuu ahay marka Soomaaliya ilaa ay arrintaas fahanto oo ay runtii xal u hesho waa ay taagnaanee dhibka aan ku jirnan waa ugu jiraan midda kale haday aan ku sheegay waa ahayd siyaasiyiin Soomaaliyeed oo iska hadla jiro dib u baar kuwa xilal hay hore u hay iyo kuwa hadda hayo dib u baar maskaxdooda iyo caafimaadkooda fiiri qaabkooda fiiri waxyaaba aan ku sheegay ah ku jiro jabiska la geliyo ama vaccine-ka talaalka lagu duro that's why marka qofka oo muxuu sababta dadka saas loo yeelan wax kale maahan waxa waaye waxaa la arkay inay yihiin dad feejigan oo runtii muxuu ahay aragtiyada ururadan si cad ugu hor imaan karo ama runtii danahooda la wadaagi kara shacabka marka maadaama ay wax qarsoon dad fufududa loo arkay inay yihiin that's why marka mar hore loo dadejiyay oo ayaga dhanba shock iyo isku dhexyaac loogu furay oo maanta ay idaacadaha meelaha iska hadlayaan oo waxa ay rabaan ay sheegayaan laakiin dadka qaarna ay leeyihiin waa sirdoon qaar ay leeyihiin may waa waashi hebel iyo hebel waa waashi iyo hebel waa waashi oo siyaasi ah jira ama siyaasi ah marka ma fahansano waxa ka dambeeya waxay u baahan yihiin cilmi qoto dheer si qoto dheerna oo maaragtay muxuu u sameeyso research iyo baxdi ayaa u baahan tahay markaas aad ogaa kartaa Soomaaliya nidaamkan iyo waxyaabahan hadda aan sheegay ururadan intii siyaad bar oo xukunka joogay ayay muxuu ahay arrintan ula imaadeen siyaad bare maamulkiisii marka dad ka tirsanaya maamulkiisa siyaad bare waqtigaas aniga ma aan joogin laakiin markii aan xogta baaray waxaan ogaaday in dad ka tirsan maamulkaas ay ka hor imaadeen danaha ururadan maadaama caalamka intiisa kale laga aqbalay imaanshahaas darteed ayaana keentay in siyaasaddii dhexe dawladdii dhexe Soomaaliya ay u baaba'do
oo burbur waddanka ugu jira ilaa haddana ma aysan fahmin siyaasiyiinta Soomaaliya. That's why marka dalal Afrikaan ay horumarsan yihiin kuwa kalena wali u baaba'san Soomaaliyana ay ugu sii liidato dowlado badan oo islaam ah ama caalamka ka jiro carab ha la qoto nooc walba ay horumar dhaqaale wax walba u gaareen muxuu ahay Soomaaliyana maanta ay ka horumarsanaa lahayd laakiin siyaasadihii lagula jaan qaadi lahaa ururadan ayaana jirin maadaama duni qarsoon ay jirto oo aan la ogeyn. Marka dunidan qarsoon in si fiican loo fahmaa loo baahan yahay. Dowladaha caalamka ka jiraan ururada ay la shaqeeyaan NGO-yada ku jiraan wax kasta ku jiraan nidaam lagula shaqeeyo oo loo fahmo oo waxaa jira policy cad leh oo ay ogol yihiin diblomaasiyiintana ka shaqeeya arrintaas cid kasta kama shaqeyn karto. Marka waxaan rajeynayaa in Soomaaliya ay fahamto dhibaatadeeda meesha ay ka jirto. Runtii dhibaatada Soomaaliya ay ka jirto xalkeeda anigu waa soo ogaaday xaqiiqatan. waxaa laga yaabaa hadda adiga muuqaalkan daawanayo inaa muxuu ahay aad la yaabto inaad ku qosasho inaad tiraahdo nin iska hadlaa tahay inaad tiraahdo nin waxba ogeyn waaye nin waalan waaye waxaa rabta aad ugu tilmaamto laakiin wax kastoo aad ugu tilmaamto soo dhawaa waan ku leeyahay. Laakiin sida dhibaatada dalkeena waxyaabaha ka jira runtii ama sida loo maleynayo ma ahan. Dhibaatada meesha ay naga jirto way sahlan tahay waa laga xalin karaa laakiin Soomaaliyan way ahayn diyaar inay xaliso siiba hoggaanka dalka soo maray madaxda soo marsan dalka waa ogyihiin dhammaantood meesha rabaha joogaan kuwa dhintay iyo kuwa nool. Marka mid kasta waa ogaa arrintaas kuwa hadda joogana ogyihiin intaas ma u dhaafaayo faahfaahin kale ma galahayo. aad u mahadsantihiin channelka haddaa ku cusub tahay subscribe sax haddii aadan ku cusbin oo subscribe hore u saarateen waa ku mahadsantahay la joogaada. macluumaadyo badan ayaan runtii soo wadaa waxyaabo badan aan halkan uga hadli doonaa ee ku saabsan sharciga soo jiidashada. jawaabtii saaxiibkay inay halkaas ku dhamaatay. sharci soo jiidashada waa ka madax bannaan yahay ururadan si nidaam waa falsafad si gooniya u shaqeyso dadkana maskaxdooda dhisto runtii horumaro badan gaarsiisa guulo waaweyn laga gaaray. haddaa u baahan tahay inaad akhriso cidda wax ka qortay waxaa kamid ah Ron Byrne waxaa kamid ah muxuu ahay Napoleon Hill waxaa kamid ah muxuu ahay Neville Gore waxaa kamid ah Gregory Farrar oo Talyaani ahay oo runtii ku takhasusay sharcigan vibrational emotional vibration shift waxa la yiraahdo u baahan dareenkaada inaad hal mar bedesho. marka waxaan idin rajeynayaa khayr caafimaad intaasaan ku ekeynaa maanta muuqaalka. bye bye.